أو يعدلنا أنا قصدت التعريف أن أوجد معها مشروع لوجود جنيه سعودالك وحاضر أنتم بدني من سيئين إنه يهي مشروع لكن أنا كواحد دونينه إن أنا وعي جديد information إن ممكن الآن نسينه تبي بقطع أصدق القرآن وكنت بيجوا جاري ترى حاضر وكسوية هاي ماشي مريو ماشي كسوعين وبيه هاي تبي بقطع أصدق waxaa maanta barnaamijkan soo kordhiyay in dad arrimahan ku kacay oo soo maray oo xaqiiqo ahaan soo taabtay dhibaatooyinka jira ee tahriibta ah ee lala kulmo in ay dadkii hor yimaadaan oo dadkii ay hoga tusaaleeyaan ay dadkii uga digaan yaa waxaan galay saxara oo ku jirnay ilaa muddo koob iyo muddo 24 saac مدة أفر لا تكعشان سحرة كتيرني واحد تاما سبنا لكن كليه بيها يلعب هندي بيهون المدري شدار الجورد شدار كاسور معليش يعني معنا قفكو ما قاعدشونه marka runtii dadaaladii hore jiray wacyigelinta ayuu barnaamijkan wuxuu ku soo kordhinayaa arag oo wax ku qaado xaqiiqda jirta ee halista tahriibta tahriibku runtii dee waa faqran waxa wada ogsoonahay inuu wax halis badan yahay laba nin oo naga midana waxay ku dileen leyd naga midana waxay ku dileen leyd oo hablaha sidoo kale ragga iyo haweenku way sameeyeen marka xagga la tago halka waxaan u yimi xalfadii gabagabeynta tahriibta halkan maxay toolay waxaan kaga hadalnaa waxyaabo badan waxyaabahan maanta kowgeeyaan meesha ay ka faa'iido kamid ah inaan khibrad qof tahriibay oo ka badbaaday dhibtii iyo waayihii soo maray ila hortaagan ila wadaagaya sidoo kalena igu wacyigelinaya inaan khatarta ka waaqsan oo aan ka fogaado sidoo kalena dhalinta aan ugu la wadaago wacyigelintaasi ayaa ahaa waxyaabahan meesha ku arkay barnaamijkan maanta waxaan arkay si qurux badan oo dhalinyarada dhiirigelin iyo wacyigelin iyo cashar u noqonaysa dhalinyaro ahaan iyo mas'uuliyad ahaan waxaan nahay qaranka dabeentiisa kuwa maanta la doonayo inay qaranka horumariyaan bayna waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo aamino waddankeena shaqaalaanta faraha badan ee runtii dhalinyarada haysataa ka mid ah la'aanta waxbarasho tayo leh ka mid ah helitaanka runtii xirfadaha ay ku shaqo tagaan baa ka mid ah waxyaabahaas ka mid ah inay helaan dad hal door oo iyaga tusaale u noqdo eegtaan baa runtii ka mid ah waxyaabahaas oo dhan baa kabaya ama keenaya dhalinyaradu runtii inay dalkii ka hayaamaan ama ay ka tagaan dhalinyaraduna runtii waxa wada ogsoonahay inay yihiin hantidii dalka ee labeenta ahayd dadku u baahnaa